maanta dadka reer Soomaaliland mucaarad iyo muxaafid buu wax looga baahan yahay inta gacmaha la isqabsado dawladda cusub golaha wasiirada cusub iyo xukuumadda la barbar istaago si dalkan loo sugo hadafyadiisa ay kamid tahay horumarka nabadgelyada wada jirka bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin allahumma wafiqna ma tuhibbu wa tardaa waxaan halkan maanta doonayaa inaan ka idhaahdo labada kalmadood mid waa duco midna waa hambalyo madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi waxaan leeyahay hambalyo iyo duco ayaan labadaba kula barbar taaganahay adiga iyo golaha cusub ee wasiirada ee aad ku dhawaaqday waayo madaxweynuhu waa madaxweyne diblomaasi ah isaga ayaa og dadkan u doortay qaabka ay ugu shaqeynayaan wixii uu madaxweynuhu ka dhaxarkay golihiisa wasiirada iyo qaabku u soo cogtay ayaan anaguna ku barbar taaganahay waxaanu leenahay dhammaantiin hambalyo iyo duco waan la barbar taaganahay waxaan ka rajaynayaa dawladda cusub insha Allah ta'ala bismillaahir kariim oo horeynay wax ka qaban doonto nabadgelyada maanta dadka reer Soomaaliland mucaarad iyo muxaafid buu wax looga baahan yahay inta gacmaha la isqabsado dawladda cusub golaha wasiirada cusub iyo xukuumadda la barbar istaago si dalkan loo sugo hadafyadiisa ay kamid tahay horumarka nabadgelyada wada jirka maanta waxaynu ognahay in Ceergaabo koox fidmoodayaali ay shar ka wadaan oo shacabkii magaalada intii guriga soo galeen ay hoobiyo ku garaacayaan sidii kuwa wax looga qaban lahaa ee magaalada ay gobolka Sanaag ugu horeeyo amnigiisa loo sugi lahaa ee wixii xumaan wada iyo fidmo wada looga qaban lahaa waa in gacmaha la isku qabsadaa maanta ma joogno waqtigii la isku dhaleecayn lahaa maxaa hebel loo cogtay iyo maxaa hebel loo cogtay waxa weeye Soomaaliland shacabkeedu waa 4 milyan madaxweynuhu 4 milyan bixil uma dhiibi karo isaga ayaa yaqaan dadku 4 milyan si dhex marayo waxaanu leenahay madaxweyne hambalyo waliba waxaan si gaar ah kugu hambalyeeynaa inaad wasiiro aad siisay reeraan hore wasiiro loo siin jirin oo qarankan kamida waxay noqon doontaa waxyaabaha ugu weyn ee dawladda laga dhaxarko in dhan waliba ay iska dhaxarkeen qolooyinka cabanaya dawladda yiri waa tacabka ugu badan baanu siinay ee qaylinaya TV-da ka qaylinaya waxaan leeyahay war dawladda hadda doorateen oo tacab geliseen xaqliyaalbaadkiina waxay qabatana soo dhaweeyay cid ay dooratana soo dhaweeyay waxaan hadalkay ku soo gabagabeynayaa inagoo dhinaca wanaagsan ka eegayna insha Allah ta'ala xukuumadda waxaynu uga fadhinaa in ay noqoto xukuumaddii la filaayay aynu 7 sano wardiinay ma sha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeegga internetka ay fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagarlii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh